guud ahaan deegaanka Bursalax oo ka tirsan degmada gobolka Mudug ayaa hadda waxa uu muuqdaa deegaan soo koraya soona kobcaya gaar ahaan dhinacyada adeegyada bulshada ee waxbarashada iyo caafimaadka. deegaanka Bursalax ee degmada Goldogob ee gobolka Mudug waa deegaan dhaqaale ahaan ku tiirsan xoolaha nool iyo beeraha waxaana ku xiran qoysas aad u fara badan oo ka kala yimaada deegaanada ciid iyo ceelcad. Bursalax waxa ay leedahay ceelal biyeed riigag ah kaasoo ay xoolo dhaqatadu u isticmaalaan in ay xoolahooda ka waraabiyaan sidoo kalena magaalada dadka ku nool ay biyo ka helaan. marka aad gasho deegaanka Bursalax waxa aad dareemaysaa horumar ka soo bidhaamaya deegaankaasi waxaana ku yaala dugsiyo kala duwan oo isugu jira hoose dhexe saro iyo kuleetooyin. dugsiga hoose dhexe ee Cira Bursalax waxa uu ka mid yahay madaarista ugu waaweyn gobolka Mudug waxaana ku jira arday aad u fara badan oo kala barata qaybaha kala duwan ee waxbarashada gaar ahaan waxbarashada tooska ah waxbarashada dadban barashada quraanka iyo diinta iyo kuleej ahaan waxbarasho ay halkaas ugu xiraysan dugsiga Cira Bursalax waxa inta badan gacanta ku haya dadka deegaanka iyo qurba joogta iyo hay'adda Road Horn of Africa oo mas'uuliyiin ka tirsan ay kormeer ku sameeyeen maalmada shayto xaaladda waxbarasho ee dugsigaasi. ugu horreyn waxa halkaas warbixin ka teediyay oo mas'uuliyiintii kala duwaneed ee kormeerka ku jidhayna uga waramay qaabka ay tahay waxbarashada dugsigaasi maamulaha guud dugsiga hoose dhexe ee Cira Bursalax. saad u jeedaan dugsi dhexe dugsi hoose iyo rag ku jira oo waxbarasho dadban oo dadkii luusgareeyay waqti badan ka dhumay oo loogu talagalay in la dedejiyo maadaama aan lagu sii deynayn banaanka qofkii la lahayn daadis waaweyn in inta la xareeyo waxbarasho degdeg la siiyo afarta qaybood bay ka kooban yihiin tirada hoyga waa ardada hoyga weeye ardadaani maaha ardada iskuulka kaligeed maaha ardada hoyga ku xaroota oo lagu hayo college oo agoon boarding ah oo iskugu jira agoon iyo dadkoodu uusan hanti buuran lahayn oo aan kafeyn karin inay waxbarashada ka bixiyaan iyo kuwa meel dheer runtii laga soo safriyay oo ay ka mid yihiin masalan Buuhoodle iyo kale oo meesha loogu keenay waxbarasho dadkaas oo dhan meesha isku jira waxa way tiradoodu 220 arday weyn nasiib darra waxa wax gabdhaha kuma jiraan waa wiilal kaliya halka waxaad moodaa xogaa inaan ugu yar ka dhubtinayno insha Allah waxaan jecel lahay inaan qaybtii gabdhahana iyadana hadii Ilaahay noo suura geliyo aan suura gelino maadaama ay ka mid yihiin bulshada dadka ugu muhiimsan yihiin sidaas daraadeed hadda waxa weeye intaani waa intii
kormeerka jaaliyadda iyo xubnaha ka socda hay-adda Road Horn of Africa ayaa waxaa ku heliyey qaar ka tirsan aqoon-yahanka gobolka Mudug waxaana iyaga laf ahaantoodu ay halkaasi ka jeediyeen hadallo ku aadan sida ay u dareemayaan shaqada halkaasi ka socota mustaqbalkii ummadda ma tihiin oo kaliya mustaqbalkii waalidiintiin iyo reer Bursaalix oo kaliya ma tihiin laakiin waxaad tihiin mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan fursad fiican baad haysataan anigu markaan adinka idin la arkaa agoon baan ahaa rajay baan ahaa ma aanan helin fursad waxbarasho lacag la'aan ah cunto lacag la'aan ah dhar maxaa la jiray labis maxaa la jiray lacag la'aan saan malaynayo waxaan malaynayaa waxa ku deeqay intaasoo dhan rag walaalihiin ah iyo gabdho walaalihiin ah oo dibadda jira oo ama gudaha jooga haddaad u malaynaysaan inay biyaha lacag socda intay ka soo dareen adinka idin soo siiyeen qaarkood baraf bay jebiyaan qaarkood musqulay dhaqaan qaarkood baabuur bay tirtiraan qaarkood irid bay furaan shaqo kastoo adinku aad yastaan ayay qabtaan markaasay waxay door bideen intay ayagu nolol fiican heli lahaayeen inay adinka idin maalgeliyaan oo adinka idin dhisaan oo adinku aad wax noqotaan marka ugu horeysa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ninka aan dadka u mahadnaqin ilaahayna oo mahadnaqin inaad ogaatiin dadkii wax idin tare oo u mahadnaqdaan u duceysaan marka kalena waa qaamaysan tihiin nin dayn cunay maxaa la yidhi baluu ka dibiray dayn baan idinku leeyahay inaad ka fikirtaan saad nolosha walaalihiinna kale u horumarin lahaydeen sidii aad meesha hadda aad joogtaan Bursaalix aad saddex Bursaalix aasaaskiisii wuxuu ahaa oo dhismayaashii iyo muhandiskiisii 1999kii wuxuuna albaabadu u furmeen oo la furay 13 bishii 9aad 2002 wuxuu furan yahay muddo 10 sano hadda marxalado kala duwan buu soo maray waagii iskoolkan kow la furayay waxaa lagu furay 75 arday oo dad dan yar laga soo ururiyay iyo 100 ama 120 arday oo magaalada ka timid sanadba sanadkii ka dambeeyay si gradual u soo kordhayay ilaa maanta uu soo gaaray oo uu marayo 925 arday oo aysan ku jirin dugsiga sare waa primary kaliya dugsiga hoose dhexe bay siiyeen 925 arday waxbarashada meeshaan ka socota waa ilaa 4 qaybood waxbarashada tooska oo midaan hadda aan hor joognaa waxbarashada dadban oo iyaduna iskoolka ka socota oo dadka waaweyn oo aan hore u helin waxbarashada iyadana waxbarasho u socota waxbarashada informalka non formalka ahina waa ka socotaa quraaniga iyo barashada islaamiga iyaduna way ka socotaa waxa kale oo ka socota waxbarashada la yiraahdo waxbarashada gurguurta oo ilaa 6 tuulo oo kamida deegaanka ku hareeraysan Bursaalix aan iyadana ka wadno waxbarashada ugu muhiimsan oo haatan yani aynu dhex joognaa waa waxbarashadan tooska dugsigu wuxuu marayaa ilaa dugsi sare 5 sano dugsiyad oo dugsi sare soo saara dugsiga hoose dhexe Cira Bursaalix form 4 ugu horeeyay sanadkii dhaweeyay ka soo baxeen 10 arday baa ka baxday 10kii arday 9 kamid way baaseen hal qof oo kamid ahna uu dhacay sanadba sanadka ka dambeeyana way soo badanayaan oo heerkoodu marka ka dambeeyo way soo badanayaan ardadu waxay dhigataan iskuulka labada gelinba waa la dhigtaa gelinka hore iyo gelinka dambe fasalada oo nagu yar awgood ama macallimiinta oo aan wada heli karin hal mar in iskuulka shifti hal mar la dhigto ardayda primary-ga hoose lower primary-ga la yiraahdo waxay dhigtaan gelinka hore maadaama ay yar yihiin oo waqtiga kuleylka iyo harkii ay saymaan karin ardada dugsiga dhexe fasalka 5aad ilaa fasalka 8aad galabtii bay soo galaan iyaguna waxbarashadu marka ardada iskoolka 925 kaas arday oo iskoolka dhigata 348 kamidii waa gabdho
577 ka mid yihiin waa wiilal macallimiinta ka shaqeysa dugsigan iyaguna waa laba shifti waxay leeyihiin macallimiin wuxuu staff supporters oo shaqooyin kala duwan qabta oo ka shaqeeya dugsiga shaqaalahaas macallimiintu waxa weeye haddii loo xisaabiyo macallimiin ahaan waa 23 macallin laakiin labada gelinba macallimiin shaqeeya jira marka haddii macallin iyo fasal loo xisaabiyo waa 23 fasal haddii labada gelin macallimiintu loo xisaabiyana waa 13 macallin oo 10 macallin oo kamid ah labada shifti ba dhigta aad iyo aad yaa waxbarashadu deegaankan wax uga bedeshay baagii la yimid iyo hadda waxay ku samaysay isbedel weyn anigu dadkii koowaad oo 2002 markii meeshii la furiyay ka furitaankii ku joogay baan kamid ah marka qofkii maalinka joogay iyo qofka maanta jooga wuxuu kala yahay laba waqti inuu kala joogo laba waqti oo aan isbarbar dhigi karin in la kala joogo mashruucaani wuu ballaaran yahay waxbarashada kaliya ma aha laakiin kulley waxaa warbixin idinka sii doona maamulaha mashruuca qaybtii waxbarashadana intaasaan kusoo yara koobi lahaa oo brief aan idinka siin lahaa wixii haatan soo jeedina oo ardada u soo jeedinaysaan falyatafadal dhammaantiin dadaal xoog leh ayaa la sameeyay sida muuqato meeshaan aniga hadda ka hor mar baan imid markaan imid haddana aad bay u kala gedisan tahay run ahaanta taas waxay muujinaysaa dadaalka la galay iyo juhdiga ay sameeyeen dadka mashruucan wuxuu ahaa maskaxdooda ka curiyay inay abuuraan waxaana waxaa loo suubinayay in idinka aad wax noqotaan dalkan waa dal waaweyn qof walba wuxuu soo noqon lahaa wuu soo noqday laakiin wax maanta loo dadaalayo waxa waaye waa idinka yaryaroo ardada oo soo kacaya micnaha waxa la idinkugu dadaalaya waxa inaad adinkana wax tartaan waalidkeena wax tartaan waddankana aad wax tartaan inaad noqotaan ubaxii maantayta ubaxa ah berina noqdo hooyooyinkii iyo aabayaashii oo Soomaaliyeed oo waddankan wax u qaban lahaa si caafimaad lahana u dhaqmi lahaa ibadkoodana wax bari lahaa idinka marka waxa la idinka rabaa maanta in wax la idin galay aad gacan xoog leh ku qabataan in aad waxbarashada aad u imaanaysaan aad wax walba ka hormarisaan inaadan noqon kaliya inaad meesha u imaadaan inaad waqti ku dhumisaan laakiin meesha waxa loo sameeyay inaad garataan inay tahay in idinka la idin dhisayo in idinka maanta heerka aad joogtaan la rabo in wax la idin baro baritaan aad noqotaan macallimiinta idin hortaagan oo kale iyo ummadda Soomaaliyeed oo idil oo maanta kala daarsan oo dhibaatada qabto dalkii u soo kici lahaa oo bedeli lahaa dalka waddanka burburiyay oo qaribay macna idinka waddankan la burburiyay inaad dhistaan baan idin karba hadduu Ilaahay yiraahdo dalka waddanka uu ku tushanayo waa idinka innaga waddanka waa burburinay marka dalka uu sugaya hadduu Ilaahay yiraahdo waddankan inay dhisaan Soomaaliya oo idil bursarax kaliya ma aha mudug kaliya ma aha galkacay kaliya ma ahan waxaad wax u baranaysaan ummadda Soomaaliyeed waxa maanta la idin baraya waxa waaye wax la rabo inay gasho famil walba oo Soomaaliyeed oo barita hadduu Ilaahay yiraahdo waddankan u soo kacayo marka waxaan idinku boorinayaa inaad waxbarashada adkeysaan inaad noqotaan arday wax barato inaad noqotaan sida idinkugu dadaalay kuwa u dadaalo ayaan idinku boorinayaa ilaahayna ha idin fududeeyo waxbarashada dalka mashruucan sameeyayna allaha ka ajir siiyo Soomaali oo dhanna waa u jeedaa maanta waxa ay qabteen inay tahay wax qiimo leh macna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo koraya ay maanta u soo kalaxeen iskuul ku yaala magaalada Bursaale xaqiiqadii waxa weeye wax aad iyo aad farxad geliya cid kasta oo aragta maanta garanaysa ay hortimaada ciyaalkan waxa mahad balaaran mudan runtii iyo bogaadin yani walaalaha sameeyay iskuulkan oo magaranaysa hindisay inay xilligan burburka lagu jiro caruurtii Soomaaliyeed oo aan iskuul haysan oo aan macallimiin haysan inay u sameeyaan iskuul macallimiin wax u dhigta yani bogaadin balaaran bay mudan yihiin runtii iyo magaranaysa mahad waxaan bogaadinayaa macallimiinta gacanta ku haysa ee wax barta da'yartan magaranaysa wax baranaysa ee reer Bursaale
Bursaalax xirsi baa yiri sheeg Bursaalax anu markii ugu horreysay waan arkay iyadoo hal barkada iyo gaari madow iyo nin Saalax jaamac la yiraahdo degan yahay baa ugu horreysay markii ugu horreysay aan arkay gaari madow oo yar oo kuwa hadda Suzuki-da leego kala ah iyo hal nin iyo meel barkada oo biyo ku shubto iyadoo ay tahay baan magaalada markii ugu horreysay ma sha Allah maanta oo intaan oo arday ma garanaysaa 1000 arday ay wax ka baranayso magaaladuna hadda ay inta leeg tahay waa wax la yaab leh isbedel weyn dabcan dad baa sameeyay ninka maalinta barkada ka qoday iyo kuwii ka dambeeyay ee ma garanaysaa guryaha ka dhisay iyo kuwan hadda iskuulkan intan leeg ka sameeyay intuba waxa weeye dadaal ay sameynayeen iyay u sameynayeen idinka idin sameynayeen iyo kuwa la midka waxa la idinka rabaa marka inaad idinku inaan beerdarayn yani dadaalkaas la sameeyay inaad wax barataan idinka waxa idinkaga aadan waxa weeye inaad wax barataan oo ka dabaysaan waxbarashadii inaad berrito ku fakartaan inaad iyaga bedeshaan inaad noqotaan dadkii dhisi lahaa oo horumarin lahaa magaaladooda gobolkooda deegaankooda dalkooda inaad ku tala gashaan marka waxaa la idinka rabaa qof waliba oo arday walba waxaa waajib ku ah inuu dadaalo muxuu ku dadaalayaa inuu wax barto inuu si fiican wax u barto inuu akhlaaqdiisa wanaagsado inuu ku riyoodo ku hamiyo berrito inuu noqdo madaxdii degmadooda gobolkooda wadankooda horumarin lahaa ujeedadu ahayd odayaashii naga horreeyey ayaa dhameeyey oo keliya anigu waxa aan ka hadlayaa waxaa weeye anigu guddiga waalidiinta odageeda ayaan ahay isla markaa waxaa weeye waxaan jeclahay ama asiga ka shaqeeya had iyo jeeraale anigu ardada wax uma qoro oo uma dhigo balse waxaan jeclahay had iyo jeeraale inaan ka shaqeeyo aadaabta ardayga isku dubiradkiisa iyo raadintiisa iyo soo gudbinta iskuulka sidii uu degdeg ugu imaan lahaa midku doonaba ha noqdee mid kastana waxaan ku waaniyaa ama si aan kula hadlaa inuu tago si uu mustaqbalkiisa uga shaqeeyo inuu waxbarashada tago ayaan u joogteeyaa oo aan uga sheekeeyaa ama se aan ugu waaniyaa isla markaa waalidiinta ardada dhashay waxaan ku sameeyaa kulamo aan ku kulminayo ama wax ugu sheegayo sidii ardayda ay u dadejin lahaayeen waqtiga waxbarashada oo ay u aadi lahaayeen waxbarashadoodii markastaba siday ugu dadejin lahaayeen quraacaha iyo waqtiga ma taqaana ay si ayaan uga daahinin iskuulkooda ayaan ku waaniyaa isla markaa waxa weeye macallimiinta laftigeeda waxaan kala shaqeeyaa aadaabta ardada iyo sidii ma taqaana ardaygu wixii aan ku wanaagsanayn waxbarashada aan uga wada waanin lahayn oo aan ula xiriiri lahaa markastaba kan xun iyo kan wanaagsan oo aan u ogaan lahayn si aan u wacyigelinno ardada waalidiinta dhashay oo aan ugu taxalluqi lahayn inuu ardaygu markastaba xogogaal aan u noqonno inuu yimaado iskuulka waxna ka barto wixii qaldanna aanu ka saxno halkan waxaan ka salaamaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan iskuulkan hoose dhexe maxay tahay sare oo cirre baan ka salaamaynaa inta ka soo qayb gashay xafladan sida maamulka beesha Bursaalax maamulka iskuulka odayaasha iyo waxgaradka iyo hooyooyinka mudanooyin iyo marwooyinba iyo ardayda sharafta leh oo aan xiisaynayno inay mustaqbalka horeyna wax uga barteen haddana ay rabaan inay wax ka bartaan baan halkan ka salaamayaa salaanka bacda annaga iskuulkan haddaan nahay reer Bursaalax waana anfacay waxbuuna taray waana tayeeyay badownimadii buu naga saaray maamulkiisa iyo guddigiisa iyo waxqabadkiisa iyo deegaankana wax badan buu ka tayeeyay ilmaha iyo annaga hooyooyinka iyo dhalinyaradii awal markay meelaha joogto jaadka iyo sigaarka cuni jidhay
oo ka fakari jiray inay macnaha meelahaas ku cayaadho qof walba wuxuu ku hawlan yahay inuu buugiisa iyo qalinkiisa iyo waxbarashadiisa inuu wato marka iskuulkan waa soo dhawaynaynaa inta ka soo qayb gashay waa soo dhawaynaynaa haddaan nahay beesha Bursaalax aniga oo magacaygu yahay Maryam Khaliif Cabdi Cali Yare muxuu ahaa Maryam Khaliif Cabdi Cali Yare aniga oo la yiraahdo oo ah hooyooyinka Bursaalax hooyo ka mid ah iskuulkaana dadkii ka soo dhagax dhigay oo inta wax ka soo waday ah waxtarkiisii iyo waxqabadkiisiina wali aan macaansanay oo ay wali noo socdaan waa billahi tawfiiq يا waxaan kaliya ku kaabayaa nabadgelyadu waa shay qaali ah in nabadgelyada laga shaqeeyo oo bulshada ardada wax baranaysa iyo macallimiinta iyo ilaa heer maamul ilaa heer nabadeed laga raadiyo sidii nabad loo raadin lahaa baan ku darayaa waxaad moodaa waxbarashadu inay maasha Allah meesha ugu badnayd oo ugu fiican marayso sida uu Siciid ka dhawaajiyay waxa oo noo dhiman kaliya waa jaamacadii walaalahana diyaas barada waxaan ka codsanaynaa inay insha Allah tacaala jaamacadii qaabkina lagu hirgelin lahaa noo sameeyo dugsi hoose dhexe sare waan haysanaa alxamdulillah jaamacadii baa naga dhiman jaamacadana in loogu daro oo naloo aasaaso baan insha Allah tacaala ilaahayna ka rajaynaynaa adinkana ka rajaynaynaa maamulka gacanta meesha ku haya sidii wax u wadeen oo qiimaha lahayd oo aadka u fiicnayd inay sii badiyaan tayeeyaan waxbarashadana kor loo sii qaado sida ugu dhaqsaha badanna loo sii wado hawlaha dhiman ee haatan dee bani'aadamku wax walba ma dhammaystiri karo waxun baa dhiman inta dhimanna in la kabo oo lagu kabo in nidaam waxbarasho oo horumar leh oo deegaanka Bursaalax ama Burar oo kale in la tayeeyo waa muhiim jiddan marka waxaan taageersanahay ama rajaynaynaa waxaa naga dhiman oo kaliya wax yar kaana inta la gaarayo in la isku saburo in la isku dulqaato in waxbarashadu halka ka sii socoto walaalahayna yimid oo hadda diyaas barahana waxaan rajaynaynaa inaysan naga daalin oo aysan inta nooga harin ay noo sii wadaan oo waxbarashada naga sii taageeraan waxa kale oo nidaam bismillaah alxamdulillaah dhammaan waa salaamantiin waxaan idinku salaamay salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxba iima harinoo intii iga horraysay rag iyo hablo ayaa waxaan oran lahaa yiri marka kelmatayn baan xoogaa ku soo koobaya mid waa iga saxitaan oo inkastoo saaxiibkii iga horreeyay uu saxay khayr Allah siiyo magac dhowr jeer aan maqmaqlay wuxuu ahaa beesha Bursaalax marka deegaanka Burar baan arrintaas ma aragtay insha Allah billahi kariim Bursaalax waxay beeshu noqon kartaa qabiil bay noqon kartaa u muuqan kartaa waxaan rajaynayaa marka kalmadda xoogaa dhadhan ahaan beesha Bursaalax inaynu ku bedelano deegaanka Burar haddii Allah idmo insha Allah billahi kariim taas dardaaran bay iga tahay iyo saxitaan qodobka kale oo aan dib u noqonayo waxa weeye hal arrin baan ka hadlayaa arrintan ka hadlayaa waxay tahay hawshan maalintii daraasaadka lagu sameeyay xaqiiqiyan wax walba waxay leeyihiin aqbal bay leeyihiin ajiib bay leeyihiin ujeedadu waxay ahayd oo kaliya in laga badbaadiyo ciyaalka aan nasiibka u helin ama caruurta aan nasiibka u helin inay iskuul tagaan waxbarasho inay helaan in laga badbaadiyo jahliga cudurka xabadda waa la socotaan Soomaaliya guud ahaan burbur baa ku dhacay laga soo bilaabo 30kii dhibaatadu waa ka horeysay 10 sano ka sii horeysay laakiin mushkiladda dhammaan Soomaaliya saameysay waa dagaalkii sokeeyo oo ilaa hadda aan wali xal loo helin insha Allah waxa Ilaahay ka rajaynaynaa iyadana in laga baxo doono hawshan marka reer Burareedo waxaan u malaynayaa Soomaalida badan baad ka nasiib badan tihiin markaan leeyahay Soomaali badan baad ka nasiib badan tihiin waa la socotaano caruurta hadda halkaan fadhida wixii ka horeeyay waxay ka mid yihiin in badan oo ka mid ah ama ku dhinteen ama ku jiraanba waxa la yiraahdo dagaalka sokeeyo ayaa loo adeegsadaa noocay doonta ha noqoto qaar kood waad aragteen oo burcad badeed meel walba in maartay dhawaaqaas ku jiro Soomaaliya kulay sumcad xun bay u soo jiiday waa wiilasheeni waa caruurteeni laakiin baadiyow ay baadiyoobeen oo aynan fursad helin ayaa taas ay ku timid insha Allah billahi karin waxa rajaynaynaa marka
badbaadadu inay maanta halkaa ka bilaabato inuu ka sii socon doonto oo aanaan ka daalin hawshatan mashruuca rangareeya ama hormoodka u ah ama daadihiya waxaa la yidhaahdaa Creed Horn Africa Creed waa aqrin weeye Horn Africana waxa weeyaan waa geeska Afrika arrintaa xoogaa markaan haddaan sharaxaad yar ka bixiyo ujeeddadii magaca kan waxaa looga dan lahaa inuu geeska Afrika inta Soomaalidu degto ay uu ka hawlgalo laakiin maantayto meeshii lagu bilaabay baan weli joognaa insha Allah waa gaari doonaa taas waa xagga awoodda weeye waxaan rajaynaynaa marka haddaanu gacmaha isqabsanno intayna halkaan joogtay iyo intayna ka maqanba inaan wax badan aan gaari doono insha Allah billahi kariim horta sidaasaan xoogaa qodobkaasaan maaragtay rabay inaan halkaa ku xuso mashruucan Creed Horn Africa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan Ethiopia ku fidino Kenya mustaqbalka gaaro meelaha Soomaaliya degto shaqo badan baa naga shaqo badan baa waqti badan baa naga xiga shaqo badan baa na sugaysa ilaahay aan noo fududeeyay wixii khayr ku jiro ardayda sida gaarka waxaan ula dardaarmi lahaa oo aan ku soo gabagabaynayaa hadalka iyo qorax baa la joogaa waa la daalay arrinkan ku soo dardaarmayo waxa weeye aan ku dardaarmayo wixii la idin gashaday ardayahay ha ilaawinin oo maxay tahay wax soo saarkii wadanka ayaa tihiin wax soo saarkii markaan leeyahay macallimiintan dhabarkayga taagan waa warshadii weeye adunkuna mustaqbalka kuwii bedeli lahaa baa tihiin ubadka dambe ee idinka dambeeya insha Allah sida kuwa kan ay u dadaalayaan wax idin barayaan idin maamulayaan dadkii calfan lahaa oo maamuli lahaa oo hanan lahaa baatiin waxaan rajaynayaa marka inaad ogaataan inayna kaliya buuga iyo qalinka aad u haysataan markaad wax barataan inayna iskiin u shaqo tagin oo aad ku tala gashaan inaad naftiina anfacdaan waalidkiina anfacdaan macallimiintiina xaq bay idinku leeyahay anfacdaan insha Allah ubadka dambe oo Soomaaliyeed oo soo gali doona inaad uga faa'iideysaan aqoontiina oo aad anfacdaan intaas baan ku soo gabagabayn lahaa wana mahadsantahay assalaamu calaykum halkan waa ardada kuleejka oo ka kooban 5 dugsi oo mid aqoonta yahay kan waa ka koobaad kul labaad saddexaad afraad ku sharaaba aqoonta waxa ardada guud ahaan weeye 220 halkan waxa dhigata galab iyo subax galabtii ku yahaa oo iskuulka dhiganayay way ku hano subaxii quraanka gala waana dugsiga dhexe inta abaad barqadii waxda waa barqadii waxay galaan quraanka gelinka hore gelinka dambe iskuulka gala waa iskuulkii dhexe gelinka dambe waxa gala iskuulka hoose iyo secondary waxa la siiyaa quraan duruus ah iyo tacliim ah naxwo iyo xadiid iyo tajwiidka quraanka oo sabuurada lagu siiyo xiso ah marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaan jeclahay inaad ardada qayb ka mid ah labada saddex intii ay ka gaarnaa quraanka waxaan ka duubtaan oo ka dhageysataan alxamdulillaah rabbil caalamiin way wanaagsan yihiin ma sha Allah taala qaybtan maxay qaabilsantaa qaybtan waxa weeye dhinaca quraanka barashadiisa iyo tarbiyada iyo arrimaha diinta oo dhan maan masaajidka oo sibaado kulli ana mas'uulka intaas oo mashruuc u qaadsan hadda waxay barnayaan quraan marka horeysa aan soo gudbinayaa hadal yar oo kooban oo ku saabsan dugsiga wuxuu ka koobnaa 103 arday ka bacdina waxaan u gudbaynaa classeska iyo macallimiinta waxaan tagi doonaa meelaha library-ga waxaan tagi doonaa qolka shirka waaweyn oo loo qaabeeyay dugsiga
waxaan tegi doonaa qolka pedagogical oo materials alaabtu taalo marka qaybta koowaad ee waqti xafiiska waxa weeye xafiiska maamulaha ama xafiiska laga hago dugsiga sare haddaad daawataan muxuu ahaa darbigiisa ujeedaan kalkaalayaasha waxbarasho iyo education aids waxyaalaha inay ka muuqdaan dhabarkiina gadaashiina hortiina ilaa hataa fruitskii ilinkiina muxuu ahaa ka muuqdaa dugsiga waxaa ka koobmaa 103 arday fasalka koowaad 47 34 wiil iyo 13 gabdhood fasalka labaad 22 wiil 22 qof 15 wiil iyo 7 gabdhood fasalka saddexaad 24 qof 22 wiil iyo 2 gabdhood fasalka tobnaad fasalka afraadna waxa way form 4 kana 10 wiil ayuu kumaya marka isku dara 103 weeye wiilashu waa 181 gabdhohuna waa 22 intaa weeye dugsiga warbixinta guud dugsiga waxaa wax ka dhigaa 5 macallin oo xul ah oo saddex ka timid muxuu ahaa jaamacadda Camuud oo aanu leenahay xiriir muxuu ahaa education ayaan leenahay nina wuxuu ka yimid yaman buu kasoo qalajibiyey waa ninka diinta iyo arrimaha muxuu ahaa waqaafta iyo diinta iyo muxuu ahaa tarbiyada islaamiga iyo luqa carabiga dhiga nina wuxuu ka yimid jaamacadda muxuu ahaa muqdisho uu kasoo baxay maadooyinka lagu dhigtana waxa weeye maadooyinka muxuu ahaa lagu dhigto dugsiyada muxuu ahaa secondary ah Puntland Somaliland lagu dhigo Somaliland Puntland iyo Muqdisho wada aan Puntland iyo Somaliland wadba waxay isku qaataan program iskuulada waxaana siisaa hay'adda Africa Education Trust oo xunto maamusho koox Ingiriisa oo khubara oo fatan dalka shaqeysa markaas ku yaala magaalada Muqdisho iskiis markaa waxaan rabaa waxaan markaa magacayga waxaan ka soo baxay jaamacadda Faaruuq Kenya oo inaaqo Kenya University تخصصي بحوالي كسبيشال ستيتس ديك العام أما ديك تجيب هيستوري سلو كان واحد يدير نفسه لا وش إنجليز أصلا هذا صار كان ما كان ما كان واحد أبو فحصنا يسلو عليه برني ما يشتغل مع الناس أكبر حسيا أكبر مجتمع because ما محد ما هو first right to be because the first right was to be a teacher in the future and now it's why I'm a teacher and also I'm pretty happy to be a teacher in the future and also today and tomorrow. That's how I got some slow progress. I have got my head in here. I'm going to shut it and so on. I was about to make a decision. And I had got any of the activity as so a minute. And my class is to do it. I'm going to ask how should my time to my son. So I had add my class. We had any of the house after that. A month is so big a shit. How can I start? I'm just going to have brass in the school. And I'm not going to have a heavy of my city. My city is still listening. I have not yet done it. There's so little. I've been over some high practice thing and most of the activity you have to cover the bush. That's a month. وبوتي ولا أيسن قارين أنا لو مصر حواليني وها لكن وها مال قليل لا بيرسل أو بس هذا وها بيسن أنت بدن هذا اللي هذا سي أما دان ريفيوج كونسل يجا محها لا بيرسل أو سمي محها لا بيرسل أو فردان محها ترى واحد ومرض اللي كي بعدين سيدا لا بيرجع international محها لا بيرجع جرب كويا لوكله يو بوك كلامك كيمي يو بوك عند دبته هذا الشيء كان يا بوك كل هاي وأنا محها سكول كله هاي بوك كله بدن المكان عندنا مكان سلكان سمينه لا بيرجع يسوي شيء ده حواليه نقطة قيبتها إنجليش قيبتها social study مالك مش social مع history and geography science section or biology chemistry physics math قيبتها معها سوالف أو فن وهالكا كمقطع
sheekooyinka Soomaaliga maxaa buugta ardayda textbook oo English iyo Soomaali isku jira maxaa novelska ama fiction-ka oo kale waxyaalahaas oo dhan isku jiraan library-ga marka waxa weeye waxaan ama kalaba oo marka marka section uu ku qoran yahay inaad tirahdaan laakiin hadda waa u jeedaan uu saaran tahay laakiin already library is in break library uu fadhiya ardaygu inuu kaas soo galo iyo notebook iyo qalin soo galaya markii iskuulkan maxaa solve gasho ama la computer-ka laga helayo wax isku jira ardaygu notebook buu soo galaya buuku rabo waa qarsoonaya qorkaas uu galaya qorkaas waa ku qarsoonaya uu soo baxaya markaas ama computer-ka hagaya banaan ka baxaya soo notebook wata waxaa la gelaya computer-ka maalin buu hay malaamad baa laga sheegaa sida way library loo isku leeyahay maamul iyo maxaa hab loo qalabkan aan aragnay oo laabka maaragtay inuu yaalla oo noocyada kala duwan ilaahay idinkaas ka kaashaday iskoolkana kusoo caawiyey arday kala duwan kuwaas oo ku kala nool daafaha caalamka hadday noqon lahayd Pakistan hadday noqon lahayd India hadday noqon lahayd Malaysia hadday noqon lahayd Afrika wadamadiisa kala duwan Yurub iyo Maraykan runtii ardadaasi waa arday gruub ah magacooda waxaa la yidhahdaa ISA waa arday ku talagashay sidii ay u caawin lahaayeen ardayda walaalahooda oo ka barata iskoolada kala duwan ee gobolka Mudug projectyada ugu horeysay ay fuliyaan ururka ISA waxa ay ka fuliyeen iskoolkan Murad Secondary School insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa waxqabadka ardayda ISA in uusan ku ekaan intaan ay dimacsan yihiin projectyadan iyo kuwa la mid ah in ay mustaqbalka dhow iyo mid ka dheer ay ka fuliyaan iskoolkan insha Allah taas baan maaragtay rabay inaan maaragtay